اسكدا بني آدم نولي لقى حانتا أنو كهذا السنة أنا مسكول حساك ديجا ميا مود يجلي بتينك أنا كاجا هرايو قلت كجيستي لبعتها يجيستي رجع عنا سيرتا يبلايدا يقصو دريس عيان كيقصو كأنه يسكن عضا يدخسيج ينجرت وريرجع يقول جفيسينا يلو بقى ملاس هل نو مسافر يسنو سفي عصو هذا الكاجا وقوق بينا يا لما يسافر كوك سويها لكن وانتين أكاعد صنايا وانتين أكاعد صنايا هكسارين معك متهاي هاي ما كل شيء هكسارين وحاسو جلس حنية بماشي أنا كفرية نرشيد وحنسو شير جرين ما كبيحين واو بحسها أو فيسبوك إلا حالة مرقانكي بيجتك قرية سيدي برلمان كبودلان iyo baarlamaanka dawladda dhexe waxa soo qoraysa xaloo dhan dastuurka Soomaaliya qoraalkaaga ka badnaa waxa soo qoraysa dastuurka dhan oo wadanka u qoran beejirka xal aniga ka soo qortaa ka badnaa bal ma saan soo fariisatay laan dheeranimo wataasa gabadha aqaan orgiyada aqaan wataasa orgiyada bayarada aqaan waa naagtaas soo fariisa karti iyo xiniya ilaahay ku sii waxba kuma dheeri sagaal bilood baan ku dhashay naag baa inkastoo la igu xantay inaan 75 ah haddana naag baa ahay I tried my best inaan wajigaaga dhabta aanu social media keeno fuusta goboladii dilandiloonayso muqdisho joogtana aad iska soo hormarin oday masaakiino dhuusadii dameerku dilooday oo piijaloo meelo joogana aad iska soo hormarin noocyo kale tii cayayaan aa soo daadisay arkay dad fanaxday dameeraha leh baa arkay aa soo daadisay inaad iska soo hormarin oo Soomaali dhinac naga istaagto qabiilna uu dhinac naga istaago you and me orgiyad daba yare feast ni'ima joker inay noqoto aan rabay qofkii waxa arkay qaadireysanoo 75 nol isku soo shidayo aniga dhahayso isma naqaano horta ina inkirti dan baa kuugu jirta ina aniga inkirto dan weyn baa kuugu jirta waana kuugu hambalyeynaya ina inkirtay because aniga haddaa isheegato taariikhda aaleedahan si toos u akhrin lahaa laakiin hadda waa ka gudbaya maadaama ay inkirtay sheekada waxaan soo noqonayaa xamar horta xamar meesha aad ka deganaydeen waa ogtahay guriga aad ka deganaydeen waa ogtahay aniga meesha aan ka deganaa aan ku dhashayna you know si fiican waa ogtahay laakiin qofka hadduu is indhasaabayo de indho looma yeeli karo maanta naa kale imgaraysa muqdishaan ku dhashay ba ayo hoogay waa layga inkirayna maahi aduu xamarna kaashanaashtada iyo dhalashada lagu dhasho xamar aduu ma bixisid oo dadka uma goysid iskuul iyo waxa ka sheekaysay iskuulood inayna ahayn taas anaaba kugu qirayaba oo waa iga weyntahay aniga oo deeqadeena iskuulood ahaydeeno shiiq madar iyo kooda ma jaad digan jirtay aniguna ma digan jirin oo ma gaarin xilligaas iskuulkaas taas waaba kugu qirsanahayba oo waxaaba tiri runta sheegto waxa tiri dadka waaweyn aan soo wareystay dadka iga waaweyn iskuulood ba ahaydeen waa Leila Maxamed Budeeye hadal la qariyo quruna ku jiro Leila Maxamed Budeeye oo joogta Ingiriiska waxa kamid ah Ubax Ibrahim oo Facebook soo gasha oo aan daris ahayn waxa kamid ah Deeqa Kubay oo walaashay Deeqa iskuul hayeen oo degan Boston Massachusetts dadka aniga isku xaafad ku dhalan waxa kamid ah Cabdiraxmaan Hollywood oo Seattle Washington jooga dadkaas oo dhan isku xaafadan ku wada dhalan waana walaalahay iga waaweyn and I respect them because walaalahay isku xaafad ahaayeen isku galaas ahaayeen isku lood ahaayeen ani ayaga karino buulada deganaydo waa naqanaa xaafadii ilmo jeera iyo eedaday ciido marka gurigeeda la dhaafo oo hore loo socdo oo buulada la gala buuladii isku raranta ahayd oo African Village ka sokaysa deganaydeen aniguna waxaan deganaa wadada weyn oo baar caafi soo hormarta markii la soo dhaafo dhinaca la soo aad laanta talaalka guriyaha villooyinka ku yaalan deganaa aabaheena wuxuu ahaa carwo taleexu maamulka ahaa nice to meet you lood haday noqotana walaashay Deeqa Khalifa isku lood ahaydeen deeqana Ibrahim ku xigay Ibrahim anaka siyaraa isma baran karno waana runtaayo kugu ma aqlisan oo Nairobi aan kugu bartay 2000 Nairobi kugu bartay kugu ma aqoon Muqdisho because aqli aan kugu bartay ma balahaynba I was fucking 6 years old markii la soo qaxay ani aad isma baran karin waa runta iskuul Sheekh Madara dhiganaysay dugsi sare dhiganaysay naag waxa ahayd weyn markuu qaxa dhacay
أنا أديكن اسمه برنكرين مركين نينك إن أديرك اللي جوجود دراي كاران وعرريس أديرك اللي جوجود دراي أو كاران أو عرريسي أنا عقلي ما لهين الميراها اللي حجرها مركي السوق حي إيماجين مركز ميقان جيركرا اسمه برنكرناني أدي المقاليفان صاحبهين gurigoodan kugu bartay adoo heesaha magool qaadaya marliin dhanaan inta ku soo miira garaafadaha ay tuubaag shakuuran tacsi u dhigaa aan miniya waxaan kugu bartay Nairobi isku levelna meena ahayn aniga xijaaba xirnaa adigana naag waxa ahayd t-shirt iyo wax holofolof iska hor xiranoo yob iska dhigaysa iyadoo Nairobi joogto waagi damana waa taa uurka yeerato hooyada ka carartay oo James Street inta iga hor timaaday aan ku dhahay abaaya hooyada maxaa uga tagtay ay dhaysay waxaas ay igu dhacay weligay kama sheekayn la soo fariisana isma dhihin taariikhdaada ilaa iyo Minneapolis kama sheekaynin laakiin adiga sinis aniga soo hadal qaaday oo aad rabto inaad been iyo cayaan lahayd isheeg farxiyo hadii qof jig cabaayo nafdan oo nool oo xaraan oo bila meher calooshaada ku jirtay daarood cuqdada u qabtan waa ninkii mareexaan cunugta ku qabto oo ilaa hadda umadu ku wareersanto la leeyahay gabadhan hawii daarood 1991 is dagaaleene reebtina waa u yihiin maxay tahay ilaa hadda social media la taagan tahayna waa ninkii mareexaan oo gabadha kugu inkiray oo aad la carartay waagi dambana gabadhi markaa dhashay ayadoo xataa man dheerti laga goyn aan Muqdisho geysay anagoo dhan waa wada ogeyn ka soo carartay marka taariikhdaada haduu qof jig cabaayo ama isdilaayo ama naftiisa isdhaafinayo waagaasaad isdhaafin lahayd Mareykan marka ay maatayna airportka dharka ku siibatay wataa tusbaxa qoorta xiratay oo Cabdirashiid la deganayd 4 sano marka boyfriend ahaan ula deganayd waatii hooyada intay ku soo wacday ku tir waa ku habaaray hadii aad duca iga rabtid gurigeeda inta lagugu yar meher lagugu sameeyay 9 bilooda xalaal isku la deganaydeen xaraan 4 sano u dul qaadatay 9 months kadib waa iska furtay naagta arinta xamarna marqaatiyaal baa jooga aniga waaweyn waa runta Leila Maxamed Budaya joogta Ingiriiska joogta gabadhi Faarax Murtiile ruwaayada la dhigaysa waay ma fahanti waxa joogta ii sheeg deeqa kubay oo Boston joogto marqaati beenlo waxa la nin dheer intuu marqaati u qabsada Minneapolis Faisal Shukriya taagan libaaxa jooga oo 24 ka timaha ku jiri Cabdicasiis coon la dhigi jiray tarisahan walaalka Ibrahim ibnoon isla leel jiran walaalka iga weyn waa uu jooga da'dayda tuug maxad ani waa la yaqaanaa xaafadan ku dhashay dadkii aniga xambaari jira jooga ilmada qaraawada buuxa dadkoo dhan jooga muxubba iyo naciima Ingiriiska iyo kala jooga Norway umadii oo dhan ilmo jeeraa jooga oo aad daris ahaydeen oo buulada villada guriga villada saas ugu jeeda deganaa jooga ilmo jeere ayaan jeere iyo jooga waa ku yaqaanaana way yaqaanaa intaasoo dhan ma aragtay halkaas dhigbal aniga gaalkacay hadaan ka imaadana ceeb maaha ayna maaha inkastoo anigu weligay aan arkin oo aan ku soo korin intaasna ku soo leekan hal sano iyo 6 bilood aan mar tagay oo ka soo tagay haddana I'm so proud ina gaalkacay igu sheegta aduu cayba u aragtaa gaalkacay caya u aragtaa laakiin aniga I'm so proud dadka ku dhashana waa jeclahay luuqada gaalkacayna si biyuura uga hadlaano weligay arkin Soomaaliya oo dhan baa marqaati ka ah laakiin maadaama aniga itaatabata taariikhdeeda aniga aabahay xataa gaalkacay kuma dhalan waa buraashad leh laakiin saasay tahay anu luuqada isticmaalo inaan ku dhashaa la moodaa anaan isgaarsiiyay heerkaas because naag maskaxdo talent ilaa waxa ka masayrtay oo ku dirim garaysay oo ilaa ay hadda ay daba taagan tahayna waa aniga inta aan ku dheerahay waa igu dhaxwaalatay laakiin maanta waxa aad uga faraxsanahay ina banaanka u soo baxday maxaa saas ku diiday maxaa aniga nimankan iigu soo faylinaysa iyo naagahan dadkan wada ka telefoon baa iga soo dhaxgalay waa soo bilaawday adeerkay laakiin lama joojinayo maanta sida loo bilaabay waa taariikhdeeda way baxaysaa kulli buuga page-ka koowaad kaliya marayaa markaan kugu arkay ninkaas aawadatay Cabdirashiid waa wiilin adeerkay hortare aniga mana caayin mana cadaabin laakiin markuu ku mehersaday 9 months isqabteen 8 bilood ma aqaan waa kala tagteen waxba uma adan dhalin friend with benefit baa noqoteen markuu ninka shiiqaal intuu aad Texas ugu tagtay meelahaas ugu tagtay uu uurka ku soo yeelay oo uu ku furay uu gabadha kala guursaday friend with benefit baa adii Cabdirashiid noqoteen adoo uur la lagu furay sidaad noo sheegtay ma naqaan inuu ku qabiy in kale markii lagu furay friend with benefit baa noqoteen ilmaha isla korsan jirteen asaguna waa tuu gabadhi ka soo qaatay cunuga adigana aad ninkan cunuga u dhashay kadibna ilmaha is korsan jirteen
cabdirashiid oo cunuga ku hayo guriga kula degan oo aad cabdirashiid guriga ku haysato baad haddana siciid dheere second floorka ugu tagi jirtay markaasaad siciid dheere second floorka ugu tagi jirtay daba yare heerkaas ani weli ma gaarin you are graduated PhD sharmuutanimada aad dadka ku caydo aduu PhD baa ka wadataa markaasaad second floorka intaad ugu tagta ninkii kale oo cunuga kuugu haya kor baad secondka siciid saad doonta ka yeeli jirtay markaasaad haddana markii siciid uu asaga walaalay wixii kaa gaagaabsaday baad rag guriga keensan jirtay been miyaa mise run afkaagaad ka sheegaysa nolosheedii inta aan noolaa for my life naagtii ugu horreysay oo geed xaaraana ka sheekaynaysaa arka aduu ahaa naagtii ugu horreysay oo nin geedkiis xaaraana ka sheekaynaysa aduu ahaa siciid dheere geedkiisaad ka sheekayn jirta maadaa hadlaaya oo aniga wax igu sheegaya ceeb waxaa jookar ugu daba waalatayna waxa waaye edabtayda iyo guriga aan jooga ka waalatay waxaa ku waalatay naagaha bildinka deganaayo dhan oo aad adigu ugu horreyso qaxba ah waxaa ku wada waalateen ma wareegtid miyaa aroosyada ma aadid ma meel aadid ma magaalada aadid aa ku waalateen labadayda lugood waxaa la dhahay magaalo miyir kaa badan iyo mara kaa badanaa lagu joogaa ninkaa jeclaatay oo ka daba waalatay naagtii ugu horreysay Soomaaliya dhunkasho soo qaaday oo saas ninka qalka uga galaysay oo ayadoo feera qaawan oo saas qaantuur loo gooba leh saas ninka xabadka ugu haysa adigu ahaa horta hadii sharaf darro loo dhimanayo ceeb ka weyn kuma soo marin Soomaaliya dhan ay wada kacday inta xiirata adaa soo doonta left iyo right magaalada ka yeeli jirtay naagta kaliya waxa tahay niman inta Yurub uga yarato hoteelada la degi jirto nimanka cuntada ugu geyn jireen hatta aan xishoonin macsidaada lama xishootid daba yare naag macsideeda hatta la xishoot marka aniga Niciima nin shukaansatay iyo Niciima 10 nin isku kor wadayna aniga ragga fiiri midaan ku sheega aniga adiga waxa tahay garaadaad leedahay sharmuuta garaadala tahay anu hadalkayga lama xishoodo naag fadara ah oo haddana garaadala tahay labadeena mid baan ku kala duwanahay anu ragga waa guursadaa adiguna waa ka macsiyeysataa hadda idhaahdo Niciima jookar ninkaasi guursatay kanay guursatay I accept that thank you very much sharafa ita because farxiyo daba yare markaad kacsato naaya adigu markaad kacsato waad macsiyeysataa anna markaan kacsado waa guursadaa that's the difference ani adinoo dhaxeeya that is why aniga nuurka iiga baxaayo anu halna ligu shidnayn adigana aad markii lagu arko aad mood burshiishil dabka ku daahay waxa ugu egtahay macsida waa iska daayiye balwada iska daa xaaraanta ku kale maada aniga sharaf xumo igu caayi kara ma aniga ceeb adiga igu caayi kara adiga ma ani ceeb igu caynaayo laba caruur aan leedahay horta ilaahay ku daayo awlaadana waa hadiyad ilaahay bixiyo daba yaroy waxa tahay naagta labadeeda cunug oo mid aqli leeyahay qaangaar yahay ninka xaaraanta dhex siixinaysay siciid dheere gurigaagu ka soo toosay ma ku qabay adaan ku weydiinay ma ku qabay Soomaaliya oo dhan awgeed baabuurkiisa baarkinka yaalo uma doonan indhahooda ku arkayeen ma ku qabay markuu kula jiifay ma ku qabay see u hadashaa marka oo gabdho u waanisaa anna kuugu daawadaa soo munaafaqad kala noqon mayo see inta social media usoo fariisato dad wax wanaaga ugu sheegtaa naya markaa kacsato aduu waa macsiyeysataa anna waa kuusoo hadalku waa kuusoo gaabiy waxaan ku yiri markaad kacsato waad macsiyeysataa anna markaan kacsado waan guursadaa farxiyo that's the difference ani adinoo dhaxeeya hadday noqoto horta dhinacaas taasan ka dhahay waxa tiri naag Soomaali waxay isku caydaa waa calaa dhashay iyo sharmuuta tahay iyo saanaatay isku caayaan naagaha Soomaalida intaas la isku caayaa intiina waa tahay farxiyadu daba yare intiba waa tahay orgiyo intiba waa tahay adigu horta huugagiyo kaan xirnahay labada keehaybad wacan hilbana keene asturan social media hadday noqotaan intaasan ka iri labadeena social media anaa ku asturan hadday madax noqoto tin ilaa cirib
personal life hadday noqotana markaan kacsada waa guursadaa adiguna waad macsiyeysataa. That's the difference labadeena noo dhaxeeya. labadeena yaa ceeb badan 70 nin oo ilma adeerta ayaa soo dirtay inay aniga i destroy gareeyaan waxna waa iga qaadi waayeen. Caawa adaa soo fariistay halahaasaan rabi anuu ina aduu soo fariisato oo wajigaaga dhabta umada aan tusaan rabi. dhibaatadan social media ka socota masterminderka ina adiga tahay inaan dadka tusaan rabi waana tusay. waa kululaatay maxaan kugu kulleeyay waa aqaana meelaha laga galo 10 sano 10 years ilaahu ma saddex nin oo kala nooc guursado waa xalaal tush xalaal way ilaahu ma 40 nin guursado waa tush xalaal 10 sano la soo dhaafay 10 sano la soo dhaafay siciid dheeraad macsi kula deganeed adoo marka labadeena yaa sharaf badan boyfriend baad nin kula deganeed 10 years oo geedkiisa ka shaqeyn ariya bahashaan oo leeyahay mooyahan ma aragta habar wax ku tumayso waa la egyahay minaan qiyaasay inta uu la egyahay akala tilmaamaysi asaas ku fiirinay indhahayga kugu arkay maana sharaf xumo igu caynaysaa labadeena laba qof oo isku dhow manahay no isku meel ma qaadan naagtaas daahirka ah cleanka dadku hadda waa nin ceeb la iyo nin wax loogu tiray way nadaafadna inta wajiga kaliya dhaqataa naagnimo si ah uma labisatay sida waxa u labisataa dadka qaabka daran leh oo aan afkayga inta ku soo xadi karin ma fahantay caruurtaaduna cunno haday noqoto McDonald's bay ka cunaan habeenkii oo dhan saa u qayilaysa maalintii waa hurdaa ilmahaagana qofka ugu horeeyo ku soo waca dhahdaa abtiyo habar yaray ina adeerow McDonald's hore igu soo qaada ama gabadha yar oo maskiinta kula dhalataad inta wacdo ku kadeedayo dhahdaa igu kare ilmaha cunto daryeel hooyanimo kuguma haystaan oo waalidnimo kuguma haystaan macsi baa la kor taagantahay balwad baa la kor taagantahay 7 habeen caruurtaada ka dhaxda adoo magaalada joogan balwad ku maqan tahay maana sharaf xumo igu caayi kartaa maana sharaf xumo igu caayi kartaa hell no kama yeelay taas adoo inta aan soo tiriyay iyo in kale aan sheegin ah iguma caayi kartaa ani sharaf xumo. That's who you are. aqoontana waxa weeye horta isku baab manihin ani aduu sidar xataa darisnimaan isku baranimo ogiye dad saaxiiba maana ahayn inta hore ooga sheegay taas aqoonna maba ku lahaan karin oo de anu qofkaas ahaaba oo markaasna waa iska yaraa markii dambana Nairobi aan kugu bartay gabdha saaxiibada aan kugu bartay laakiin ina dad islaameed marqaati soo gashato isku habar wacato waxaas waa laga fiican yani adaa is hayna horta kaalay adu ina dad isku soo lamaaniso ma ogi ama kaliga karti iyo naagnimo isaga ka celisay yeelan kartaa kaliga naagnimo isaga ka celisay ma yeelan kartaa inta meel soo fariisato ma iska celin kartaa qof bini aadan horta inaad masaakiintan dad soo dilayso ma ogi fuusto gabalooyin balaay ina igu soo dilayso dhagaxaan igu soo tuurto de meel qaarad daran iyo ma aragtay xabad kaliyaali ismiidaamin ma ogi ama sida caaw u soo fariisatay am so proud of you horta aad waxa ugu faraxsanahay inaad miiska ku soo fariisay finally wajigaaga dhabtaana dadka inaad tusaan rabaa waxaan arkay ma rabo anigu dadka qaarkood ina afaarooda galo laakiin arrimahan in isaga baxaana u roonaan lahayd because adigu guri dhalaa ku jira dhagax lama qaato ciidan xumo iyo rafaad caruurihiini baad u safriseen afaarayga inaydan gelina idin fiican xanuunsantiin cuqdad baa qabtiin dad jiran baatiin oo qabyaalad ku waashay naagaha meeshan waa arkay naaga heesii yaan yuuraha qaadi jirtay ku waashay sidii rati macsare shiidaya waxaan u sheegayaa naagtaana aanu ku dhaganahay cid kale kuma dhagani marka ilma adeerayaalo mar dambe haday soo hadashana u soo jawaabay hadda intaana ugu simayaa wali kama hadlin hadda waxaan waa iska araarsi way buuga beejkii koowaad kaliya maraya intaan qarinayaa ka badan arrimaha dinteena anaalka si aanay oodin xiiso dartay u ilmee xayaati ma xasuustaa heestaas qolkayga waxaa ka qaban إلى ربي الرحمن ونعذاب والله بلا واقص هذا ملك عساس قاعدة يا حق عساس قاعدة مية يا حاجة عساس قاعدة حاتي لك عساس بقية إنه من يابل سماد تني كاس نبقى معها كمان أب فيعني كمان هو يفيعني وأنا رجو بقول له أن نقف دمراتاي وحن كجوانين لها maadaama amada xaaqi dhukurna la xishoon weyso orgiyo
inaan naftaada u xishooto ragga deyso xag xagashadooda hadda koor baa dhibaato kaa soo gaartay nin naaqaba inaad daba orado kana waa raggii oo kaleeto marka ka joog baan ku leeyahay aniga labdo xantaad dawadeed tahay deeraha ka dhigin dabnaha igu shidin ila dadaal ya labdo xantaad dawadeed tahay deeraha ka dhigin dabnaha igu shidin ila dadaal bisu qabo hana daalino hadal yoo ku dilin niyadka dadbani kuma diirnaxdee niyadka dadbani kuma diirnaxdee waa jeceshaya dooqiisa matid anaa hadda kuu sheegaya dooqiisa matid wallaahi his type matid taamboyga ma jecla dadka xiiran uu necab yahay timaha dhaadheer buu ka helaa gabdhaha timaha dhaadheer oo geeyooyinka sida aniga oo kale not you waa ku waalatay ilka case maalintuu Minneapolis imaada ilaa hadda Facebook ku soo caayis maalin afkaaga kama qaadin kulamana uu sahan waa la yaaba fururuqley fararaqley sidii dhaala la furay nafaara buutoy mehebel baa maqli jiray moogta buraanbura hadda ninkan maxaa ugu waalatay gabaree maxaa ninkan lagaa siiyaa ninkan ma niciimu guursadaa ku haysataa maxaa kaa sameeyay ninkan ugu waalata hadda ninkii baa ku waalatay obsess Facebook oo kusoo qoraysa heesahaaga buraanburka hebelow saambaata wiilkaan caayaysid horta ninkan dad baa dhalay gabdhaana la dhashay I don't care aniga ma fahantay ninkan daba dhigatay ninka la dheeraa halka maraya oo reer Sheekh Cabdiraxmaan dadkiisi baa buuxa horta day ka qabsanayaan magaalada cid ogama badna naaga sigis fiida oo Ilaahay baan ku dhaartay dhuuntooda biyaha la marayo loo jeedo oo haday hal gacan saa kugu siiyaan aad ku dhacayso tuulada yareedo aa ka timid waa isnaqaanaay nin baqa ma aha hortare nin baqa ma aha horta baqinta sheegaysidna anaga gurigeena ma taalo walaa aniga walaa asaga waa la xishoodaa gurigan reerkan degan reerkan reer Maxamed Qaysa waa xishoodaane ma baqaan ana hadda runta ku sheegay ninkan aleeda waa iga baqayaa iyo waxaas iyana Ilaahay baan ku dhaartay uma xisaabsanid baan ku iri tiishka uu kabaha isaga tirtiraayo iyo adiga la isku mid ah oo tiinteeda kaleeto naaga aniga lawyer uma noqon karo waayo naaga 6 feet oo Ilaahay baan ku dhaartay haday gacanta saa kugu dhahan aad ku dhacayso boqoladii jiirooyinka badneeda ka timid oo shaqaalaha iyo laga doonan jiray meeshaas aad ku dhacayso baa la dhashay you know that right marka ninkan afkaaga ina ka daysaa ku fiican aad ba afkaaga ugu soo celcelisay ninka magaciisa wallahi billahi tallahi 29 naagood la dhalata taagan magaaladan joog naftaada u naxaya cid ka baqaysa male waa laga xishoon jiray oo waxa ku qaraaban jirta habar yar adoo dadka saa u jaraya ba habar yar waagi Hindiya aad tagtay oo aad Facebook naga soo caayayso qabiil oo dhan afka marisay waagaad Kenya wiilasha joogo dhaadheer cayday ilaa waagaad Soomaaliya oo dhan isku martay hadda aad farmaajo Facebook ka caydo intaas oo dhan reebtinimo lagaaga xishoodaa nobody ka cabsanaya ma jirto hadda shalay aad markii qayra laga tuuray jagada oo aad habar gidir soo caayis you think habar gidirna ka xishoonayso uu soo caay lahay laakiin ehelnimo lagaaga xishoonayo Soomaa kama baqayaan habar gidir ehelnimo kaaga xishoonayo dadkoo dhan ehelnimo laga xushmeeya Soomaaliya oo dhan baa ku nacday qofka kaliya oo dhinac laga raacay orgiyoy wallahi billahi hatta kuwa adiga dadku ugu sokeeyay baa idahay jookray soo karbaashnaata ummadii oo dhan baa hawiye daarood isa qof aad BK buu ahaa ninkaad aflagaadada 7 bari caayisay wuxuu ka sameeyay isin jirin hada kale su'aal baa ku weydiinaya aabo kan yar iga celi kan weyn aan iska celiyay baa taa adigu BK asagoon waxba ka hadlayn baa daaqtiri keen jaamac way iga fogtahay istriyo daaq baa tiri guuleed Simba nin raga way boqolow ah wuxuu joogaa Europe